halkaas aad dhegeystayaal nagala socotaan waa VOA Washington. maalintii shalay aqalka cad ee dalkan Mareykanka waxaa heshiis taariikhi ah ku galay Israa'iil, Imaaraadka Carabta iyo Bahrain. Heshiiskan oo dalka Mareykanku uu ka soo shaqeeyay ayaa iyada oo uu ka qayb ahaa madaxweynaha Mareykanka ay qalinka ku duugeen ra'iisul wasaaraha Israa'iil iyo wasiirada arrimaha dibadda ee Imaaraadka iyo Bahrain. haddaba heshiiskani muxuu ka dhigan yahay mase yahay mid wax ka bedeli kara xaaladda bariga dhexe? cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa su-aalahaas iyo kuwo kaleba waxa uu weydiiyey cabdiraxmaan aadan xadaana oo ka faallooda arrimaha carabta iyo dunida islaamka. waad mahadsantahay cabdixakiim walaal. wallaahi arrinta horta ugu muhiimsan waxa weeyaan adduunku dee ay aad iyo aad u dareemayaan ay doonayaan inay dareemaan waxa weeyaan in meeshaa nabad ay ka dhacdo bariga dhexe. dagaalo fara badan oo aad u xoogeystay baa xilliyadii ugu dambeeyey waxa weeyaan ka socday. dadkuna maahmaahda way ka dhigan jireen arrintiisa waa bariga dhexe. marka barigaa dhexe inuu mar un dego dadka oo dhan iyo adduunka oo dhani waxa weeyaan way doonayaan in ay si un u degto. laakiin ilaa hadda rajuun baa muuqata laakiin rajadii ma tahay mid aboobaysa. dadka arrimahan ka faalooda waxay leeyihiin halkii la doonaya weli lama marin. hadda waxaa heshiiyey waa Israa'iil iyo laba dal oo ka mid ah carabta oo Bahrain iyo Imaaraadka. labadaa dal iyo Israa'iil heshiiskooda gaarkaa markaynu eegno maxay markaa saddexdooda heshiiyey marka ay soo kordhin karaan markaynu juqraafi ahaan iyo siyaasad ahaan iyo awoodda leeyihiin aynu eegno? runtii waxa ay soo kordhin karaanuun Israa'iil waxay faa'iido u tahay baa la leeyahay doorashada waxa weeyaan ku guuldaraysa laakiin ilaa hadda dadku ay ku kacsan yihiin. Trump oo isaga laftiisu doorashada doonaya oo dee doonaya inuu ku guulaysto yidhaahdo wax weyn carab iyo Israa'iil baan heshiisiiyey. laakiin carab ahaan iyagu nimanka Bahrain iyo Imaaraadku waxay in badan ishayeen Iran oo dee Bahrain waxay oran jirtay Iran ayaa waxa weeyaan Iran baa waxay oran jirtay waa xaafad ka mid ah Iran Bahrain. Imaaraadkuna dee waxay ka haysataa meelo fara badan ayay ka haysataa Imaaraadka. marka Imaaraadka iyo Bahrain waxay doonayaan laba arrimood. horta midda ugu horeysa in ay haddii dagaal yimaado Mareykanka iyo Iran isdisho ama si kale isu dilo amaba Iran iyo ay meelo kala qabqabsato inay Israa'iil difaacdo oo Israa'iil marka ay la heshiis nabadgelyo ay la samaystaan iyo inay ka helaan Mareykanka diyaaradaha la yidhaahdo F-35 oo imanka ku cusub adduunka oo 2016 Israa'iil ay qayb siisay in ayaguna ay ka iibsadaan. waana Trump shalay sheegay inuu ka iibiyo diyaar u yahay inuu Imaaraadka iyo Bahrainba uu ka iibiyo diyaaradaha noocaasa dakhli fara badanna ay Mareykanka u soo gelinayso. marka ujeedooyinka ugu waaweyn ee uu ka helaya waa intaa weeyaan. laakiin Israa'iil shacabkeeda ilaa iyo hadda ma dareensana in waxa weeyaan nabad ay helayaan. waayo shalay waxa sidaynu ka warhayno sawaariikh ayaa la isweydaarsaday ama gantaalo diyaaradeed baa la isweydaarsaday. taasina dib bay ku keentay in heshiiskaas ay macno u samayso la yidhaahdo maxaynu ka faa'iidnay heshiiskii shalay miidiyada laga akhriyey haddii weli xabadda ay socoto Gaza sawaariikh laga soo tuurayo. marka ta ugu muhiimsan waxa weeyaan in iyagu wax arrimahooda uun danahooduna ay tahay laakiin adduunka loo sheegayo in nabadda ay soo socdo. falastiin haddaynu soo qaadanay iyada oo dabcan cidda ay sida tooska Israa'iil isku hayeen ay tahay muddooyinka ugu dambeeyey ama sida gaarka ay isku hayeen Israa'iil. heshiiskan in wadamo carbeed ay la gaadhaan Israa'iil qadiyadii Falastiin iyo weliba taageeradii Falastiin loo fidin jiray iyada xaggee ku dambeynaysaa se maxay ka bedelaysaa? runtii Falastiiniyiinta ayuunbaa dee taladooda mar kastaba gacanta ku haya. way kala qaybsanaayeen. marka imanka qaybsanaantii bay yidhahdeen waa lanaga faa'iidaystay. shir bay ka yeesheen inay midoobaan ayay imanka doonayaan. waxa kaloo ay sameeyeen mudaaharaad bay sameeyeen iyaga dhexdooda oo dee waxa weeyaan meelahan ay kala degan yihiina. laakiin sida muuqata dowladihii la jaarka ahaa Israa'iil ee sida Suuriya iyo maxaa la yidhahdaa iyo Lubnaan iyo dee Filistiin oo dee iyaga laftooda ay haystaan. saddexdaa ayaad moodaa iminka inay ku sii hadhay dadkii waxa weeyaan lahaa wuxuunbaa wax lagu soo ceshan karaa dagaal. marka ilaa haddana way taagan yihiin oo halkiin bay taagan yihiin. wax allaali waxay iska bedelaysaa ma jirta bay leeyahay annaga xaggayga. annagoo xaggayga waxaanu aaminsannahay inaanu hubuun urursanno Israa'iilna aanu dalkayaga aanu ka riixno si aanu nabad u helno. ta keliya dowladdaanu ku helanaa Falastiiniya ta keliya aanu Qudus ku soo celin karnaa waxa weeyaan Israa'iil siday xoog ugu qabsatay in xoog lagaga qaado. ta keliya marka ayagu ay mar kastaba ay saarayaan iminka awoodda waa taas weeyaan. ugu dambeyn haddaan cabdiraxmaan ku weydiiyo maaha labadan dal ee Bahrain iyo Imaaraadku labadii dal ugu horreeyay la heshiiyey Israa'iil. hore waxaa heshiiskan oo kale ula galay dalalka Masar iyo Jordan baa hore ula galay.
waynu ogeyno dee ilaa intaan haddana xaaladda way taagneed iyadoo heshiiskaa lagula jiray wax badan iskamay bedelin qadiyadii Falastiin iyo tii bariga dhexe labadaba tani maxay kaga duwan tahay amaba ay arrinkii hore ka bedeli kartaa in marka runtii dib aynu eegno heshiisyadii hore iyo heshiisyada imika shalay lagu kala saxeexday Washington heshiisyadii hore ee Washington laftooda lagu kala saxeexday xilligii Anwar Saadaat iyo xilliga waxa weyn Reagan iyo xilliga 1979 iyo tii kale 1994 wax Oslo iyo Saarafaad iyo ay saxeexdeen iyo wax weeyaan iyo ninkii kale la dilay iyo tii kale ee Rabin iyo 1994 dhammaan dawladahaasi waa dawlado la jaara Israa'iil waa dawlado si toos ay u dagaalamayeen haday tahay Masar haday tahay wax weeyaan Jordan iyo haday tahay Filistiiniyiinta dhexdooda marka isbeddelada farbadan baa jiray wax badan baa lagu kala kacay oo mesela marka imika Masar ay leedahay Camp David ay saxeexday in laga baxo Siinaa in wax weeyaan dadkii laga xidhayo loo soo daayo heshiisyo macquul ah ahaayeen Jordan lamid tan kale maxaa la raayay Filistiin lafteeda in Gaza la siiyo in gacanka daanta galbeed iyo Gaza iyo gacanka Gaza la siiyo in 1967 wixii ay qabsadeen ay dib uga baxaan يعني heshiisyo macquul ah ahaayeen laakiin imika heshiiskan imika Bahrain iyo Imaaraadku ay galeen waa heshiis iyaga u gaar ma aha heshiis shuqulba ku leh Filistiin ma aha heshiis shuqul ku leh wixii Israa'iil isku hayay kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Aadan Xadaana oo ka faalooda arrimaha carabta oo warameeyay Cabdixakiin Maxamuud Shirwax